aynu u jeedna halkan waxa inooga muuqata xaafad aad u qurux badan. xaafadan ayaa waxay ka mid tahay degmada Berbera, xaafad ka mid ah Berbera sida aynu ogsoonayn markeedii hore waxay ahayd 4 xaafadood balse hadda waa 5 xaafadood. ilaahay ayaa mahadle ka sokowna waxa suurta gelisay dawladda hoose degmada Berbera. jazakallahu khair. xaafadan aynu ogsoonahay waxay ka kooban tahay 600 oo guri ku dhawaad, waa 500 iyo dheeraad masha Allah. waxay leedahay iskuul hoose dhexe, sidoo kale xanaanada, saldhiga iyo santarkii, waxyaabo fara badan adeega bulshada ayay leedahay. halkaan aad arkayso waxa inooga muuqdo masaajid dhismo ku socdo. masaajidkan wuxuu ku yaalaa xaafada magaalo cad, qaar ahaan magaalo cad gudaheeda ayuu ku yaalaa, waa degmada Finland shanaad. haddaba sidaynu arkayno dhismo ayaa ku socda. dhismahana waa fi sabiilillah, qof kasta uu ka qayb qaadan karaa oo doonaya ajar inuu, maadaama oo aad arkaysid xaafadan quruxda badan laynoona dhisay inagoo wax lacagana ka bixin, dhulkana lahayn, guryahana lahayn, lana dawladeenuna ay inoo suura gelisay. haddaba adigu ha noqon wax matara ee ka qayb qaado masaajidka dhan ee aad ku tukanayso ee xaafadaada kuugu yaal, welibana lagu dhisay. jiingadaha sidaynu ogsoonahay xeebaha uma wanaagsana oo hore ayay u daxalaystaan, daxal ayay keentay, waana taa hortaala sida aad arkaysaan. waad u jeedaan wiilal ayaa korsan oo korkooda ka muuqda, jiingadahana ka soo rogay. sidoo kale sameecadaha iyo waxyaabo badan ayaa ka halaysna. bulshada xaafada ku dhaqan Finland, gaar ahaan degmada qaybteeda magaalo cad ayaa waxa isxilqaabay bulshada ku dhaqan. waxay sameeyeen inay wax ka qayb qaataan, ama ha yaraato ama ha badnaatee inay isku cantatabaan oo ay meesha wax keenaan. qof kasta oo ajar iyo axsanaad la baxay oo sadaqada dhiibtay, jazakallahu khair. ilaahay waxaanu leenahay meesha uu ka soo saaray wax khayr qaba ha ugu bedelo. masaajidka runtii waan u baahanahay, waayo sanooyin ayaa jirtay ibinka sameecadu ay ka xumaayeen 2 sano maybe inay dadku masaajidada magaalada ay u aadayeen taraawiixda iyo salaatuleysha inay kusoo tukadaan. laakiin halkan haddii aynu sameecadaha hagaajisano oo marawaxaduhu shaqeeyaan oo masaajidkana ruufkaas sare si fiican looga bedelo, jiingado qurux badan la saaro, waa hubaal in lagu tukan doono haddii Allah awooda la idmo. haddaba asxaabta quruxda badan ee ku nool degmada Finland, qaasatan magaalo cad iyo xaafad Muna oo masaajidkani ka dhaxeeyo, masaajidka ilaahay ka sokow inaga ayaa iskale, maadaama aynu ku tukanayno siday dawladdu haddii ayba inoo dhistay xaafadan aad u jeedo ee quruxda badan ee aad arkayso qiimaha ay leedahay. waxay leedahay garoonkii, waxay leedahay iskuulkii hoose dhexe, xanaanadii, santarkii, waxyaabo badan oo arrimaha bulshada ay u baahan yihiin bulshadii. marka maadaama intaa la inoo suuro geliyay, ma waxayna samaysan karin ama intay xaalka masaajidka ka maqan, qof kasta wuu ka qayb qaadan karaa, wayna u furan tahay. sadaqada aad la baxdaan adiga ayay meel ku taalaa oo aakhira kaaga sii horeynaysa, ilka cid kula geli mayso, laakiin camalkaaga saalixa iyo wixii aad baxsatay ayaa hore ku raacaya. ma rabtaa jidka siraadka inaad sida hilaaca ku noqoto, ma rabtaa inaad noqoto safka hore kuwa jannada, waa inaad sadaqada la baxdaa, waa inaad masaajidkaanaad qurxisaa, waa beydka Allah. qofka maal gashada ayaa dunya aakhira liibaaday. isku day inaad janno shaqaysato, meel fog ha ka raadin, waa hareerahaaga. haddaba beydkan Allah aynu arkayna ayaa dad badan kasoo qayb qaatay, qole Hargeysa joogta iyo qole Daaroole joogta, waa 2 qaybood aan u dhaweyn xaafada, laakiin ajarka ayay shaqaysaneen. mar raba magacyadooda inaan magacaabo. qof kasta oo fi sabiilillah u shaqaysanaya Allah ayaa arkay subxaanahu wa ta'ala. kuwii hore ee ilaahay meeshii ay ka soo saareen wax khayr qaba ha u geliyo, inta ka qayb qaadanaysana liibaanta Allah inagu hanuunshiyo. dhammaanteen aynu ka qayb qaadano xaafadahaan inaynu masaajidkeena hagaajisano sida aynu inagu. hadda waa inaga oo kaliya, maaha cid kale ku iman mayso. xaafadda masaajid bay leedahay, masaajidkaaga qurxiso sida aad ugu tukato oo aad uga raysato safarkii aad u galaysay taraawiixda iyo inaad salaatuleysha kusoo tukato masaajidada kale. waa maalmo khayr leh, waa maalmo barakaysan, waa maalmihii digriga iyo salaada la badin jiray. haddaba hoygeena ama beydka Allah aynu qurxisano. sida aad u jeedaan xoogaa xaalxaala ayuu u baahan yahay, istiir gacanta ayaa lagu haya,
dadka isxilqaamay ama fikirkan uu ku dhashay ama keenay rag iyo dumar inay inta wax iska aruuriyaan masaajidkooda rabadaanta si loogu tukado ay dayac tirtaan oo sabiicada u samaystaan ilaahay ajaraan la soo koobi karin ha ka siiyo ilaahay janno firdawsi ha geeyo waayo wax khayr qaba ayay maalmahan inoo shaqeeyeen insha Allah bidmillaahi kariim qof kasta waxaan rajaynayaa inuu ka qayb qaadan doono oo u dhow xaafadiisa qofka xaafada deganna way ka warhayaan inta lacagta aruurinaysa iyo cidda loo dhiibayo haddaba xaafadaada ka qayb qaada quruxdeeda waad u jeedaa aadna qayb ka ah